أنا waxaan u taaganahay galmudug macno leh waxaan u taaganahay galmudug dhalinyaradeeda shaqo u abuur waxaan u taaganahay galmudug aqoonta hoggaamiso waxaan u taaganahay galmudug dowladda federaalkana saaxiib la ah dhuusan reebna degan uma taagni galmudug xalaalaysi wax la yidhaha maqasheen Soomaaliya 45 beri xamar inta ku soo nasto qofka uu yimaado waxaan idin ballan qaadayaa haddaba aan fursad u helo inaan madaxweyne idin noqdo inay noqoto meesha lagu nasto dhuusan reeb galmudug waxay u baahan tahay madaxweyne karti leh qofkaan kartida lahayn xataa waxa loo ogol yahay ma isticmaali karo under capacity qof markuu awood lahayn waxa loo ogol yahay ma isticmaali karo waxa ka war haysaan dad badan oo shaqeeyaa jira miisaaniyada la dejiyaa sanadka dad badan hay'ado badan oo miisaaniyadooda isticmaalina jira sababtoo ah awoodooda fulintooda tacbaan مثال إنسانا مالين دويت دولة فدرال كأه وزير كمالية هشيس بوسعي هاي هرمرت الدولة ده هوسه أو العقل بوسي ديني أو بنتلان يو توبلان يو كفرق البيت العقل بوسي تيرش بلي قل مدونا لما حسين تيروا استاندر سواي وول بنك وحورب وول بنك وحورب هذا أقوم ولهين يكرتي أو ده أبي فكر إن ده كرتي ده لها العكس وول بنك يطالع عليه وكور هيسان لبدي الدولة قبلت هذا هيرش بيلي يقل مدونا معارض مع الدولة لبدي معارض كو هنا أو اللي باحوا كل هذا العكل وجي أحمد مدوب يدني ما أتحنا هذا كلا دحية الدولة كلا ما دحية كل هذا العكل وجي سببته حتى كباسيتي لي أنا قاعد أجرب تين إن كباسيتي ندرس أودي ندرس دولة وزارة السيين civil service ku dhisan yahay maaliyaddeedu dhisan tahay xisaab celin samaysa inaan dhisaa laga rabo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda juhdiga ay meeshan ku soo bixisay mira dhalkiisa ku sheegaya mira dhalkiisa waxa weeye madaxweyne xaafo gaalkacyo fadhiya oo baarlamaan dhisay oo shaqo wata oo halkaas jooga asaga iyo dad badan oo halkan ka caroodanay isla joogaan maamulka ahlu sunna wal jamaa oo halkan ayaga dhuusan reeb qayb kamida fadhiya oo 20 xildhibaan iyo inta kale ayaga hadda raadsanayaan ayaga u talaahay jooga oo aan qayb ka ahayn baarlamaanka intiisa kale iyo xukuumadda dhisatay oo ayadana meel joogto murashaxiinteeni ugu tun weyneed mucaaradka oo ayagana meel jooga oo waxaas la qooshay raalina ka maniin mana ogoli afar galmudug ay maraysaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu u yimid hal galmudug oo xaafo gaabi ما أوجد دري بس أوجد رأي سؤال اسمه على رأينا أدوك جواب ميديو ما أقول إن سؤال لو يديه هاي قلت أنا جا حاسستا dad badan oo media soo gala oo yiraahda galmudug midaha la dhisay oo waa galmudug oo yaro cadaad ku dhisay oo aniga ilaahay markiisana amaanaad ma jecel koowde laakiin inaan garmeeda waxaan ogaaday intii kale oo dhan soo xaliya hal xaba ayada ka dhimanay nimankii dawladda haystay oo waxaad ogeed haystay aayadda ma aniga meesha xaf ka bilaabo ma meesha aniga ka bilaabo ma afar xabay u celshay galmudug afar meel ku kala hoyanaysa caawa jirta marka waxaan rabaa xageen ka aadayna meesha aniga waxaan ka mid ahay dadka nabdoonada ah ee aaminsan in dawladana lala noolaan karo karaamadana la ilaashan karo federalismka waxaa loo sameeyey in dadka dawladda laba level ay yeelato level waa levelka federaalka ah oo xamar ka taliya waajibaad iyo wuxuu leeyahay xuquuq levelna waa levelka dawlad goboleedka waajibaad iyo xuquuq uu leeyahay horta waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka haddaad akhriseen iyo haddii kaleba qodobada 48 49 konton 51 52 53 54 yaa waxay ka hadlayaan dawlad goboleedyada iyo dawladda xiriirka ka dhaxeeya iyo xuquuqda mid walba leeyahay qodobka 54 aan rabaa marka inaan idiin sheego awoodaha heer federaal ay leedahay dawladda federaalka koow waa arrimaha dibadda laba waa difaaca qaranka oo militariga u dhigmo saddex waa jinsiyadaha afar waa lacagta siyaasadda lacagta lagu samaynayo horta afartaas cabdiraxmaan cudawaa oo dawladda federaalka afartaas mid ka mida ku haysta haddaad aragtaan anigaa gardaran haddii afartaas laga soo tago dawladda goboleedku inta ka soo harta ayadaa leh booliiska dawlad goboleedka amniga dawlad goboleedka waxbarashada dawlad goboleedka caafimaadka dawlad goboleedka
laakiin waxa aniga xaq ugu leeyahay inaan dowladda federaalka miisaaniyadda inteeda badan soo martaa inaan kala shaqeeyo labadaas marka dadku waxay aad u kala fahmi leeyihiin dowladda iyo yaa dadka oo la macaamilaya yaa gardaran haddii marka mararka qaar dowladdu la arko ayadoo dhuusamareeb ila maamulaysa oo rabta taliyaha booliiska degmada dhuusamareeb inay soo magacaawdo xamar ka soo magacaawdo markaas ayadaa iga gardaran soo maaha marka waxaa la rabaa always maaha qaladku inuu hal dhinac jiro maaha wada shaqayn la-aantu labada dhinacba waa ka imaan karta lagu ammaano waxaa ka mid ah dad iska soo horjeeda uu maamuli jiray team of rivals aa la yidhaha bow uu leeyahay laga qoray tiimkiisu wuxuu ahaa team of rivals warniga aniga waxaan aaminsanahay inaan ahay ninka keliya ee isku hayn kara madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wixiisa oo dhinaca mucaaradkii oo dhinac kala maaragtay culamaa udiinka iyo madaxweyne xaaf iyo dhinaca qabaa'ilka iyo dadka degan oo dhinaca waxaas oo dhan ninka u odayeyn lahaa oo isu keeni lahaa oo galmudug jidka ku shubi lahaa inaan aan aaminsanahay laakiin xataa waxaan ku hubinayaa aniga nin team work ku fiicanaan soomaalinimadana nin ku fiicanaan nin wax in la kala gooyo jecel maayo waxa in la isla haysto oo adigana aad dhinac uga fadhido anaan dhinac uga fadhido isla joogno marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaa u sheegaya ha iska kay iimaansadaan dadka reer galmudug meeshay taageeradooda u badan tahay marka anna waxaan ballan qaadayaa cabsidoodaas inaan xalliyo oo aan galmudug iyo dowladdii kala raaracda aan la dhihin